Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Ladies and gentlemen, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عشركين waxaa ku saabsan yahay vocabularies about shopping. Vocabularies about shopping weeriyadii ku saabsanaad dukaameysiga ayaa inoo sii socday. Part 2 waa qaybtii labaad ayaan qaadan doonaa insha Allah. Together please. Credit card ama debit card. Credit card, debit card waa kaarka accountka. Customer macmiil. Delivery waa alaab keenis, alaabta marka lagu keeno guriga ama goobta aad joogto. Discount qiimo dhimis. Exchange rate waa isku beddelka lacagta ama sarifka lacagaha. Expensive qaali ah. Fit leg. Florist shop waa dukaanka iibiya ubaxa ama fiyooraha. Gift voucher waa warqad hadiyadaha lagu rido. Luxury items waa alaabta labiska sida ragga iyo dumarku alaabta ay ku labistaan, hadday noqoto saacadii, ookiyaalihii, kabihii, boorsadii sida dumarka oo kale. Shop opening waa waqtiga uu dukaanku furo. Packaging material waa alaabta waxyaabaha lagu duubo. Quality item waa shayga tayadiisa. Receipt waa ciwaanka ama receiptka. Sale time waa waqtiga iibka. Sales assistant waa caawiyaha ama gacanyaraha dukaanka wax gadaya ama iibinaya. Tusaalaha marka dukaanka soo gasho qof baa ku soo dhaweynaya oo kula soo dhawo mudana ama marwo, maxaan kaa iibinaa oo aan kaa gadnaa. Qofkaas ayaa loo yaqaanaa sales assistant, gacanyaraha ama caawiyaha dukaanka. Scale items waa miisaamida alaabta. Security waa qalabka ammaanka lagu ilaaliyo ama lagu sugo. Shelf box waa khaanado ama armaajo gidaarka la suro oo alaabta lagu gurto. Shopper dukaanle. Showroom waa qolka uu ku soo bandhigo alaabta cusub dukaanku. Okay, halkaa waxay noogu dhamaatay qaybtii labaad. La socod wanaagsan qaybta saddexaad insha Allah.